haddii aad ku cusub tahay janaalkeena Taqwa Tube subscribe saar dambalelka riix si aad u noqoto daawadaha koowaad. mahadsanid, jazaakallahu khayran. bismillah. culamadii hore Soomaaliyeed wax ka maqlay miyaa leedahay? goorma maqasheen ee soo banaayeen maalin dhaweyd ma wax cusub soo baxay sideedaba heestu iyo gabaygu waxay ka mid yihiin afka marka hore wixii ku xumay wuu xun yahay, wixii ku sanna waysan yihiin. haddii eray hees ama gabay la yidhaahdo la isugu kaa duuduubo, heesta qaar bannaan baa jira, laakiin waa tee gela soo looma heesi jirin. inaad gelaaga ku caraabisaa hees ma bannaantay mise ma bannaana? waa bannaantay. cahdigii nebiga xidaaga waa la samayn jiray, rifqan bilqawaariir buu nebigu lahaa. saxaabigii awrta hogaaminayay dumarku fuushan yihiin, dabeetana geelu marka la caraabinayo heesa gaaro haddaad ugu luqayso uu toobiyaha qabsadaa jira. dabeetana ninkan saxaabigii intuu nebigu calayhi salaatu wasalaam awr u dhiibay dumar ay saaran yihiin ayuu nin aad u cod fiican buu hayo hees ugu luqeeyey. dabeetana geeli baa tooreeyey, si fiican isu dabagalay, awrtii baa dheeraysay. markaasuu nebigu ku yidhi rifqan bilqawaariir, war dumarka dhowr buu nebigu leeyahy, yacni ka kala daawa sidan aad u wado. hadday heestu tahay tii xoolaa lagu waraabsan jiray ee marka la waraabinayo loogu heesayo waa bannaantay. hadday tahay tii maqasha lagu kaxayn jiray waa bannaantay. hadday tahay tii caanaa lagu lolan jiray waa bannaantay. hadday tahay tii ilmaha yar loogu heesi jiray waa bannaantay. idan heestu markaynu af soomaaliga nidhaahno hees ama gabay ama maanso ama wuxuu ka hadlaya ku xidhantay. hadday waxun ka warramaysa ka war, naag baan jeclaaday way boodiya caddayd waa kan, haddaad hees ka dhigto dee inaanay bannaanayn aad baad garanaysaa, waayo wax xun baad ku hadlay. adaanu heesaynin haddaad afka caadigaa ku tidhaahday ku xumayd soo maaha. idan horta sideedaba afka waa af, hadduu heesi iyo hadduu gabay yahay iyo hadduu yahay wuxuu ka warramaya ku xidhantay. haddaba waxbaa jira heesta dheer oo inta heesa layna yidhahdo hoosta laga gelinayo oon dhaqanka Soomaaliyeedna kuba jirin. waxaan muusiga la yidhaahdo dhaqankii Soomaaliyeed gaalkuu la socday, soo saa ma ogidin horta. dhaqanka Soomaaliyeed hidiyo dhaqanka kuma jiro muusig. safaaradii ugu horreysay bigelka la tumi jiray Ingiriiska watay iyo Hindidii la socotay, cuudkiiyo kamankiiyo intii la garaaci jirayna qoladii cadan ka timi baa la timi. waxaan oo dhami waa 1950yada iyo 40yada iyo meelaha kan ayaynu ugu bilaabnay. wixii ka horreeyey Soomaali gabay iyo heesba waa taqaaniya, maanse iyo buraanbur iyo wax la tiriyo. waa xaaraan iyo wax xalaal dadka ma hadli jirin. hadduu wax xun ka gabyo reer isku dirayana waxa la odhan jiray war waa wax xun. hadduu geeliisa ammaananayo ama wixiisan ammaananayo uu ka gabyana dee looma arkaynin xume, waa wax fiican. idan luqa ahaan haddaad u jeedaan heesi waa wixii ay ka hadlayso, midhahay tirinayso. yuu idinku qaldi intuu midho fiican tiriyo inuu yidhaha halkaasay odhanayaan waa xaaraan, dee waa midho caadiye. waxaynu isku haynaa ka hadlaynaa kaa maaha, waa qumqumta dambe. haddii Bob Marley lagu timo iyo muusiga iyo digdigta iyo macaasifta waa taata laga warramaya, laleeyahay miyay bannaantay mise ma bannaana. ta laga hadlaya waa kaa. waxaa kaloo laga hadlayaa waxaan laga hadlayaa hadday tahay hadal xun. idan waxaan u malaynayaa waxa xunna waa garanaysaan, waxa sanna waa garanaysaane waxba wadaad baa yidhaha ku marmarsoonina. wallahu aclam.